daawadayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu xikmadda abuurkiisa inoogu qaybiyay laba jinsi oo aan kala maarmin labadaas oo kala ah lab iyo dhadig labkaas iyo dhadigaasi waa kuwo leh hal cudur oo la dhaho jacayl haddaba jacaylku markuu wiil ku dhaco iyo markuu gabadh ku dhaco astaamaha lagu gartaa way kala duwan yihiin gabdhuhu way ka xishood badan yihiin wiilasha inta badanna ma soo bandhigtaan jacaylkooda waana sababta ay uga fursado yar yihiin wiilasha oo intay gabadhu xishood dartii dusha wiilka uga eeganayso isagu wuxuu xoogga saaraa siduu ugu soo xiro gelin lahaa gabadhaas haddaba fiidiyowga waxaan idinku soo gudbinayaa gaar ahaan wiilashan sheegaya 12 astaamood oo aad ku garan karto gabadha ku jecel laakiin xishood dartii aan ku sheegan karin ee daawasho wacan kow ma rabto inay toos indhaheeda kugu fiiriso balse hoosta ayay eegmada kaaga xadaa laba dhammaan barahaaga bulshada ayay ku xidhantay laakiin weligeed kulama hadasho saddex waa mid aan ka mashquulin hadalkaaga ereyadaadana weelaysa oo ku raaxaysata afar si taxaddar leh ayay wax kasta kugu saabsan u raadisaa shan si ula kac ah ayay hortaada wax ugu tuurtaa si aad u caawiso ama ula hadasho lix waxay kuu soo dirtaa hadiyado aanay magaceeda ku soo qorin toddoba ma jecla inay sii joogto meel lagugu hadal hayo ha lagu ammaano ama ha lagu caayabee sideed wejigeeda way kaa leexisaa markaad doonto inaad weji ka weji u fiiriso sagaal mar kastaad salaantid waxay iska dhigtaa mid aan ku arkayn wayna kugu naxdaa toban jidhkeeda shigshig ama gargariir ayaad ka dareentaa markay kula hadlayso koob iyo toban waxay kaa daawataa meel kaa fog oo aanad ka arkayn labiyo toban lambaro aanad garanayn oo markaad qabatana aan kula hadlayn iyadana aad uga shakidaa waa calaamad weyn oo muujinaysa inay ku jeceshay gabadhu ugu dambayn intaasoo calaamadood haddaad ku aragto fadlan miskiinta wax la qabo